habboon daawadayaal ku soo dhawaada warka VOS Somali TV qodobada aad daawan doontaan waxaa ka mid ah mucaaradka Soomaaliya oo ku dhawaaqay 10ka May barnaamij xiran ah dowladda faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxaya dagaal culus oo ka dhacay xadka u dhaxeeya gobolada Mudug iyo Galgaduud wasiirka wasaaradda waxbarashada maamulka waqooyi bari oo kormeer shaqo ku tagay qaar ka mid ah dugsiyada sare ee magaalada Laascaanood wasaaradda caafimaadka oo tallaabo adag ka qaadaysa dhammaan farmashiyaasha khatar geliya caafimaadka bulshada ciidamo ka tirsan asluubta Soomaaliya oo ka careysan mushaar la'aan oo saacado kooban xirtay qaybo ka mid ah wadooyinka caasimadda waddanka dibadda aad daawan doontaan waxaa ka mid ah maraakiibta uu leeyahay dalka Faransiiska oo lagu weeraray marinbiyoodka Hormuz iyo Iiraan iyo Sacuudi Arabiya oo ka wada hadlaya xiisadda ka taagan gobolka Bariga Dhexe qodobadaas ayaad ku daawan doontaan warkeena waa khamiis taariikhduna ay ku beegan tahay 6da bisha 5aad May sanadka 2026 ku soo dhawaada daawadayaal qodobadii aad hordhacda daawateen oo intaas ka dhameystiran mucaaradka Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay in ay barnaamij nabdoon qabanayaan marka la gaaro 10ka bisha May ee sanadkan 2026 barnaamijkaasi oo ay sheegeen in looga soo horjeedo dowladda federaalka ee Soomaaliya barakicinta ay ka wado magaalada Muqdisho siyaasiyiinta mucaaradka Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay barnaamij ballaaran oo lagu wado in uu ka dhaco magaalada Muqdisho 10ka bishan aynu ku guda jirnay ee May kaasi oo ay sheegeen in shacabka Soomaaliyeed ay ku muujin doonaan cabashada ay ka qabaan barakicinta iyo xaaladaha adag ee lagu hayo dadka danyarta ah ee ku nool caasimadda kulankan ay yeesheen siyaasiyiinta mucaaradka ah oo uu hormuudka ka ahaa madaxweynihii hore ee dalka Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa lagu sheegay in barnaamijku uu noqon doono mid nabadeed balse si weyn looga soo horjeesan doono siyaasadaha maamulka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Sheekh Shariif ayaa sheegay in shacabka Muqdisho ay xaq u leeyihiin in ay muujiyaan cabashadooda fasaxna aysan uga baahnayn dowladda balse laga rabo in ay muujiyaan awood si ay ugu laabtaan guryahooda dadka waxaan ugu yeeraynaa maalinta axadda soo socota oo bisha 10 ay tahay 10ka May in loo soo baxo si loogu gargaaro dadka la dulmiyay hoygooda laga barakiciyay banaanka 10 iyo kuwa guryahooda dulumka lagu qaatay in ayaguna ay soo baxaan dadkuna ay soo baxaan qodobka saddexaad waxa waaye dadka halkan taagan waxay diyaar u yihiin mudaharaadkaas inay hogaamiyaan oo ayagu dadka ay horgalaan oo goobaha mudaharaadka uu ka dhacayo ay tagaan waxaan ugu yeeraynaa marka dadka inaysan rabsho samaynin inaysan cid dhibaataynin inay kaliya u soo bannaan baxaan xuquuqdoodii la duudsiyey ee faraha laga bixiyey inay soo ceshadaan intaas kaliya inay u bannaan baxaan waxaan la soconnaa nidaamka maanta meeshan ka jira wuxuu adeegsado waa gacmaha wiilashii Soomaaliyeed ee la rabay inay ilaaliyaan amniga iyo sharafka dadka Soomaaliyeed nidaamkan waqtigiisu waa dhamaaday dulmigiisa xad dhaaf uu noqday qofkii isku daya inuu shacabkaas dhibaateeyo ku xisaabtamo in la xisaabtami doono oo aan looga hareynin waa inuu ogaadaa dadka dhalinyarada ah ee mustaqbalka leh haddii mudaharaad lagu ogoleen oo guriga deganada aan lagu ogoleen oo aan waxbarasho lagu siinayn oo koronto aan lagu siinaynin dowladnimadii waxay u taagantaa macnaheedu lama yaqaan marka waxaan rabnaa si loo helo mataqaanaa nidaam ku dhisan cadaalad oo ku adeegaya bulshada dadku inay u soo baxaan barnaamijkaas waxaa la diyaariyay website magaciisa la yiraahdo Hiil Shacab marka Hiil Shacab aad iska diiwaan gelinaysiin dhammaanteena waxaa laga maarmaan inaan u istaagno arrintaas faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal culus oo ka dhacay xadka u dhaxeeya gobolada Mudug iyo Galgaduud sida uu warkan ku dhameystirayo huriyahana Maxamed Cali Siyaad 13 meeshii taala ilaa hadda saacadan aan kula hadlayo howlgal qorsheysan oo jab xooggan lagu gaarsiiyay al-shabaab ayaa ka dhacay deegaanka Boorey oo ku yaala xadka ay wadaagaan gobolada Mudug iyo Galgaduud ciidamada deegaanka ee degmada Baxda ayaa fuliyay howlgalkan kadib markay heleen xog la xiriira dhaqdhaqaaqyo ay kooxda al-shabaab ka wadaan deegaankaasi saraakiisha hogaaminaysa howlgalka ayaa sheegay in ciidamada weerar ay ku qaadeen fariisimo ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan kooxda al-shabaab halkaasina lagu gaarsiiyay jab xooggan
taliyaha ciidamada ilaalada shacabka degmada baxda xasan daahir ayaa sheegay in howlgalkan lagu dilay horjoogayaal sarsare iyo maleeshiyaad kale oo ka tirsan al-shabaab isagoona xusay in ciidamada sidoo kale ay burburiyeen goobo ay kooxdaasi ku dhuumaalaysanayeen. meesha boorey la yidhaahdo 15 qof baa joogtay oo niman hadda waxa weeye ay ka mid yihiin madax isku sheegaya. waxaa jooga amiirkii gobolka mudug midkay ku sheegeen, waxaa joogay maaliyaddii gobolka mudug midkay ku sheegeen, waxaa joogay wacyigelinta midkay ku sheegeen mudug iyo kuwo kale oo baabuur ku baaranaya meesha, kuwa madax isku sheegay iyo staafay wataan bay ahaayeen. shalay galab bay meesha iskugu yimideen. mar kasta meesha ay marayaan iyo xaaladooda meesha ay tahay waannu la soconnay. saaka waxa weeye 10kii saacaan weerar ku qaadnay iyagoo baabuurtii meel ku baaraya, xoola u qalan yihiin oo dadkii xoola ka qashay, dadkii u xaraysan yahay oo dadkii dhibaato iyo xarayn ay ku wadaan. waana meesha ku weyn saaka 10 saac 13 meeshii baan dhignay. meeshii bay yaallaan 13. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لله الحمد. 13 meeshii bay taallaa ilaa hadda saacadan aan kula hadlayo. laba ayaa ka fakatay, mana fakaan labaduba dhaawac weeye, weliba liita oo bareelis ah weeye. meeshii bay hadda joogaan oo xoogaa dadkii waxa weeye meelo ka yimid meelo waxa weeye ku gargarafaynayaan. haddana waxaan rabnaa inaan ku laabanno insha Allah, ilaahay hadduu idno. intaasna xal noo soo qabsoontay, waana wadi doonnaa, waana wadi jirnay. wax badan baan soo wadnay, wax badan baana wadi doonnaa insha Allah, ilaahay hadduu idno. ilaa ay Soomaaliya ka zuulayaan, ilaa Soomaaliya ay ka zuulayaan waanu ku wadaynaa, gacanteena way ku soconaysaa insha Allah, ilaahay hadduu idno. wasiirka wasaaradda waxbarashada maamulka waqooyi bari Soomaaliya ayaa waxa uu kormeer shaqo ku tagay qaar ka mid ah dugsiyada sare ee ku yaala magaalada Laascaanood, sida uu warkan Laascaanood uga soo diray waryaheena Cabdirashiid Xasan Walaah. wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka waqooyi bari daahir cabdirasaaq engeydh ayaa maanta kormeer shaqo ku tegey dugsiyada sare ee Gatweyn iyo Ilays ee magaalada Laascaanood, waxaana booqashada ku heliyey gudoomiyaha waxbarashada gobolka Sool daahir maxamed axmed. wasiirka iyo wafdigiisa ayaa si weyn loogu soo dhoweeyey xarumaha dugsiyada, halkaas oo maamulka iyo macallimiintu ay warbixin ka siiyeen xaaladda guud ee waxbarashada, baahiyaha jira iyo heerka diyaargarowga ardayda ee imtixaanka shahaadiga. intii uu socday kormeerka, wasiirka ayaa booqday fasallada waxbarashada isagoo si toosa ula hadlay ardayda dugsiyada Gatweyn iyo Ilays. wasiirka ayaa ardayda ku dhiirigeliyay inay sii laba jibaaraan dadaalkooda waxbarasho, islamarkaana ay si wanaagsan ugu diyaargaroobaan imtixaanka qaran ee dhowaan la filayo. mudane daahir cabdirasaaq engeydh ayaa sidoo kale ka hadlay muhiimadda waxbarashadu ay u leedahay horumarka bulshada, isagoo xusay in wasaaraddu ay waddo qorshayaal lagu horumarinayo tayada waxbarashada iyo kor u qaadista aqoonta ardayda. gabagabadii kormeerka, wasiirka ayaa uga mahadceliyey maamulka iyo macallimiinta shaqada ay bulshada u hayaan, wuxuuna ku booriyey inay sii xoojiyaan dadaalada lagu dhisayo jiil aqoon leh oo mustaqbalka door muuqda ka qaata horumarka dalka iyo bulshada Soomaaliyeed. wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa sheegtay in ay tallaabo adag ka qaadayso dhammaan farmashiyaasha khatarta geliya badqabka bulshada. wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Cali Xaaji Aadan ayaa sheegay in dowladda ay qaadayso tallaabo adag oo ka dhan ah farmashiyaasha aan buuxin shuruudaha caafimaadka ee looga baahan yahay adeegyada dawooyinka. wasiirka ayaa si kulul uga hadlay xaaladda farmashiyaasha qaarkood ee ka howlgala magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka, isagoo tilmaamay in ay jiraan goobo badan oo aan lahayn qalabkii muhiimka ahaa ee lagu kaydin lahaa dawooyinka. wasiirka ayaa sheegay in la soo gaaray xilligii albaabada loo laabi lahaa dhammaan farmashi kasta oo aan qaboojiye lahayn. farmashigii air condition aan lahayn ha la xiro, waa dowladda waaye, waana inay dhahdaa. waa la joogaa hadda waqtigeedii, waqtiga la dhihi lahaa la joogaa hadda. farmashi kaste oo aan qaboojiye ku jirin ha la soo xiro in la yidhaahdo. waxaa la joogaa xilligii la dhihi lahaa
farmasiga qofka gadaya waa farmasiste waa inuu ahaadaa qof daawada yaqaana waa inuu ahaadaa qofka farmasi iibinaya ee aan aqoonteeda lahayn ee shahaado aan ka haysanin ha la soo xiro xilliga dheelaya la joogaa waxaa la joogaa containerka bariiska lagu keeno daawada lagu keeno xilligii la mamnuuci lahaa walla daawada containerka ay ku soo degto container air condition leh ee qaboojiye leh ee isgooni ah waa inuu ahaadaa xilligeedaa la joogaa haddii marka hadda kadib ay sii socdaan howlahaas oo daawadii lagu keenay containerkii bariiska iyo lagu keenaya lagu keeno oo farmashiga daawada lagu iibiyo bagaashka iyo maaragtay sandaqadihii lagu iibinaya ayagana lagu iibiyo oo qof aanan maaragtay wax baranin 2 maalmood inuu daawada magaceeda barbarta uu iibiyo haddii lagu sii jiro oo dadkeennana ay saf u galayaan qofka aan dugsi sare xataa ka bixin ee farmasiga iibinaya saf ay u galayaan oo ilmaha uu u daaweynayo ceftriaxone uu ku duraya maalin walba waxa weeye dhibaatadaas annagaa mas-uulka noqonayno ilaahay hortiisa taa ayaa la rabaa marka horta inay soo gabagabowdo oo lasoo afjaro ciidamo ka tirsan kuwa asluubta Soomaaliya oo ka cabanaya mushaar la'aan ayaa saacado kooban waxa ay xirteen qaybo ka mid ah wadooyinka caasimadda barkale Maxamed Cali Siyaad ayaa warkan dhameystiraya ciidamo ka tirsan asluubta Soomaaliya gaar ahaan qaybta ilaalada xabsiga dhexe ee Xamar ayaa saaka waxay xirteen wadada u dhaxaysa maxkamadda iyo jagboontiga asluubta kadib cabasho la xiriirta mushaar la'aan ay ka cabanayaan ciidamadaasi sarkaal ka tirsan ciidamada oo la hadla warbaahinta waxa uu sheegay in ciidamadan aysan helin wax mushaaraad ah muddo 1 sano iyo bar ka badan isla markaana ay waayeen xaquuqdoodii shaqo wuxuu tilmaamay in xaalad adag ay soo wajahday taasoo sababtay in tallaabadan ay qaadaan si codkooda loo maqlo sidoo kale ciidamadan ayaa ka dalbaday dowladda Soomaaliya in si degdeg ah loo bixiyo xuquuqdooda maqan maadaama ay gudanayeen waajibaadkoodii amni muddo dheer iyagoona helin wax mushaar ah anoo sarkaal ciidanka asluubta ah waxaan ka cabanaynaa ciidankii dibowga oo 1 sano iyo bar shaqaynayay maanta waxay nagu qasabeen madaxda oo ciidanka asluubta inaan wadada xiranno 1 sano iyo baraan shaqaynaynay haquuq la'aan iyo garaamkii oo ciidanka intaas waa haynay 1 sano iyo bar waxaan ka shaqaynaynay laamigaas maalintiina laamigaan taaganahay hawadiina waa seexanaa waxaan ka codsanaynaa taliyaha ciidanka iyo wasaaradda cadaaladda iyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha inay 12 saac ay ku soo jawaabaan waxaan ahay askari dhibow ah oo xuquuq la'aan ah muddo sanad iyo bar xuquuq la'aan ah oo soo shaqeeyay har iyo habeen taagnaay dhaxanta iyo roobka iyo wax walba u taagnaay marka waxaan cabasho ka nahnay askari wuxuu ka hadli karaa sidiisaba xuquuqdiisa xuquuq la'aana cabasho ka nahnay waa aragtaa maanta wadooyinka inay xiran yahay hadda waxaan joognaa kawaanka malaayga maanta oo taariikhdu tahay 6 bisha shanaad madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa iyo ra'iisul wasaare Xamse iyo Dr. Xasan Sheekh Maxamuud in xuquuqdeena ee meel noo saaraan sanad iyo wax la jira xuquuq la'aan ah intaasaan taaganahay shaqaynayna koorso aan ka soo baxnay ilaa up to now sidii aan u taaganahay u shaqaynaynaa وهاجاك داوديال intaasi waxay ahaayeen qodobadii wararka gudaha markana aan u gudagalno wararka caalamka mid ka mid ah maraakiibta laga leeyahay dalka Faransiiska ayaa waxa lagu weeraray isaga oo maraya marin biyoodka Hormuz iyadoo Iiraanna ay sheegtay in markabkaasi uusan sidan sharciga ilaalada kacaanka ee dalkaasi kooxda maraakiibta Faransiiska ayaa sheegay in markabkeeda Santarado la bartilmaameedsaday xilli uu marayay maranbiyoodka Hormuz Talaadadii 5 May taasi oo sababtay burburka markabka soo gaaray iyo dhaawaca shaqaale shirkadda ayaa sheegtay in shaqaalihii dhaawacmay laga dejiyay markabka isla markaana loo sameeyay daryeel caafimaad inkastoo aan la shaacin cidda beegsatay markabkan weerarkan ku qaaday Iiraan ayaa horay u sheegtay in ay beegsan doonto maraakiibta aan haysan ogolaanshaha ilaalada kacaanka ee ku sugan marinka Hormuz ugu dambeyn Iiraan iyo Sacuudi Arabiya ayaa waxa ay ka wada hadleen xakamaynta xiisadda colaadeed ee ka aloolsan bariga dhexe wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan oo booqasho ku jooga Jaynaha ayaa qadka telefoonka kula hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudi Arabiya labada dhinac ayaa isla adkeeyay muhiimadda sii wadida wada hadallada diblomaasiyadeed iyo iskaashiga gobolka
si looga hortago xiisado hor leh. Wadahadalladan ayaa imaanaya xilli Shiinuhu uu door muhiim ah oo weyn uu ku leeyahay dib u soo celinta xiriirka Tehran iyo Riyadh kadib 7 sano oo uu hakad ku jiray. Booqashada wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan ee Shiinaha ayaa sidoo kale ku soo aadaysa ka hor safarka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku tagi doono gobolka. guud ahaan daawadayaal halkaasi ayaan kusoo gabagabeynayaa warkii aad ka daawanayseen VOS Somali TV kulanti dambe nabadgelyo.